الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها لبدا قدومية قولها وكيلة iyo قولها guurtida قولها wasiirada akhyaarta halkan isugu intay caawe waayeelka iyo waxgaradka nin garboodkii gobolka Sanaag salaadiin cuqaal aqoon-yahan waxgarad waayeel iyo dhalinyarada dhamaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sharafweyn bay aad iyo aad idinka iyo anna kama noogu tahay inaan caawa kulanka intan leeg halkan aynu isugu nimaadno nolosha bini'aadmigana ayaana had iyo jeer qeexaysa in dadka marka ay dana ka dhaxayso arrimahooda inay isugu yimaadaan marka ugu horeysa waayeelka halkan ka hadlay iyo markas koo la yimaado waxa ku jiray gobolkani waa gobolkii awoowayaasha gobolkani waa la yaqaanaa taariikhdaasi inuu isaga laga soo jeedo laakiin haddii ay sidaa tahay waa in ay jirtaa wax badan oo uu gobolada kale kaga duwan yahay oo ah wada dhaqanka nabadgelyada midnimada oo mararka qaarkood aan ceerigaaba ku wanaagsanayn marka labadaasi isma yeelanayaan gobolka awoowayaasha iyo inay nabadgelyadu maxaan ku dhahdaa ay ka yar waxaysanto intaanan arrimo kale oo barnaamijyadii ku jiray aanan in yar ka taaban arrintii odayaashu ay ka hadleen xagga nabadgelyada iyo xagga maxaan ku dhahdaayay degmooyinka dalku waxa uu ka kooban yahay 23 degmo golayaal deegaan laga doorto iyo 47 meelaha oo degmo dhii ah degmooyinkaasi cashuur bay dalka ku leeyihiin mudday ka yara maqnayd hadda labadii sanadood ee u dambeeyay madaxweynahana aan ugu mahadnaqayo uu nagaala shaqeeyay aniga wasiir ahaan iyo wasiirka maaliyadda iyo golaha wasiirada waxa loo soo celiyay dhammaan degmooyinka cashuurta ay dalka ku lahaayeen oo ah cashuurta guud ee dalka soo gasha boqolkiiba 12 iyo badh waayo waxa loo siiyay in ay inna ku kabaan hawl maamulkooda inta kalena in ay ku maamulaan barnaamijyo horumarineed qalab macadaad degmooyin fara badan goboladooda xoog bay u socdeen halka annaka dib ugu noqonayna waxba idinkagama maqna qaybtiina haysataan degmooyinka qaarkood aad bay u wanaagsan yihiin degmooyinka aadka u fiican ee isla gobolkan iyo ka badan ee kala go'ay ka midka ah ee aan aadka ugu ammaanayo degmada Laas Qoray baa ka mid ah oo meel aad iyo aad u fiican maraysan barnaamijka mashaariicda horumarinta ee ay dawladdu maamusho kaligeed 47 mashruuc oo qoondaha lacagtiisa ku baxda ay tahay 3 milyan oo wax yar la oo dawladda Soomaaliland ay bixiso waxa u badan hartiga u badan cashuurta barnaamijka intiisa kale ee ugu badan oo ka soo ku baxdo kharash dhan 35 milyan oo dollar waxa ugu badan gobolka Sanaag aynu imika joogno iyo gobolka Maroodijeex labada gobol baa ugu badan Ceerigaabo Sanaagna mashaariicda ku baxda waxa weeye boqolkiiba 23 Maroodijeexna inta ku baxda waa boqolkiiba 23 gobolada kale 6 gobol ee hore iyo kuwada ka dhex farcamay intooda kale inta badan way isla leeyihiin marka waxaynu u baahannahay mashaariicdan aan imika ka hadlayno dawladda bixisay mashaariicda hadda imika gacanta ku haysan dawladda wada mashaariic fara badan qolyihii inagala shaqeyn jiray nimankii reer Yurub ahaa way ka bixin dawladda wada doorashadii berigii dhaweyto 18 milyan bay dawladdu bixisay waxay dina iyagu bixiyeen boqolkiiba 75 dawladduna inay bixiso boqolkiiba 25 doorashada soo socda diiwaangelinteedii iyo kharashkeediina way taalo madaxweynahaasna way ka taalaa maaliyadeena way ka taalaa komishankana way ka taalaa waxaynu u baahanahay nabadgelyo qodob uu man ku soo ururinayaa si yar oo kooban odaydaada ay ka hadleen iyo odayadii kale dalka haba yaraatee wax la yiraahdo nabadgelyo daraa ka jirta ma jirto buuqa iyo siyaasaduna waa iska walaalo weligeedba buuq uu ka jira nidaamka doorashadana imika masharihiisa iyo wixiisa wuu socdaa laba shay baa u shardiya
labada shay oo shardi waxa weeye waa komishanka ururada xulaaya salaaba saddexdeed xusbi waan isla ogolaanay baarlamaanka saddexdeed xusbi ka tirsanina wuu ogolaaday haddii annaka nolol tuhmayo inaanu kaligeeyo eriyanayno oo aana iyagu baarlamaankooda ogolaanaynin kaayaga tiradiisu ma gaadho inay ogolaadaan tirada annaka baarlamaanka nagaga jirta xusbiga kulmiye tiradoodu ma gaadho in ay ansixiyaan komishanka mana gaadho in ay ansixiyaan komishanka doorashooyinka iyaguna way soo qoreen madaxweynuhuna wuu gudbiyey xubintiisa baarlamaanka waxaan leeyahay komishanka doorashooyinka soo socda waxa ugu soo horeeyay mudane cabdiraxmaan ayaa ugu soo horeeyay go'inta xubintiisii keenay madaxweynuhu lama habsaameeyna markiina uu gudbiyey isaguna intiisii uu gudbiyey intaasi waa nolol caadi oo siyaasaddu ay leedahay nidaamka nabadgelyada ee dalkuna aad iyo aad buu wanaagsan yahay mashaariicdana waynu wadi doonaa hadda kuwaynu gacanta ku haynana waynu dhammaystiraynaa waxyaalaha jira waxaa ka mid ah ee bilmasalan dhibta ah ee iminka jira ee gobolkani gaar u lahaa waa xoolo nool saddex gobol baa Soomaaliya markaynu isku jirnay ugu xoolo badnaa waa Sanaag waa Laascaanood waa Burco annaka Burco inteedii waanu dhammaysanay aanteen kama soo baxo Sanaag iyo Laascaanood baa yaroon Laascaanood inteedu way badbaadaysaa waayo geed dhuxula Laascaanood ilaa iyo buu hadlaa lagama shido marka waxaad yeelaysaan xoolihiina waa haysataan waana ka imika way idinka baxayaan waydaan isogeyn aanteen ma haysataan waana dhuxulaysataan orda dhulka aad ku faantaana xidhmada u taqaaneen ceshiimada u taqaaneen kunkunkiidaha haya joogi jiray ninka maanta boqolka leh waa kuma intiina ninna ii sheegi maayo annaguna waan idin kala warhaynaa marka waxaan leenahay arinta dhuxushana aad iyo aad qayb maxaan ku dhahday isaga saara arrimaheena kale waxa weeye dawladda imika intay joogtay tii ka horeysay xusbiga kulmiye oo qodobkan ku soo gabagabeynayo waxyaalaha ugu badan ee imika socda ee hadda meesha aad u fiican maraya waxa ka mid ah iyada oo aan caalamka laynaga aqoonsanaya waxa laynaga ogolaaday in shidaalka dalkeena ku jira la baaro gebagaba imika wuxuu ku marayaa dhulkii ay baareen gobolka Maroodijeex ka Oodweyne ka Togdheer galbeedka u dambeeyay ee gobolkan Sanaag intii la baaray hadda imika waxay marayaan in ay calaamadiyaan ceelasha la qodayo labadii wafti ee u dambeeyay ee arinta yimi labaduba imika way yimaadeen ayaan dhaweyd bay labadu inaga tageen nabadgelyada aynu afka kaga ciyaaraynay iyadoo waxba jirin la leeyahay nabadgelyaan jirin kanaan jirin waxa aad ogaataan dadka shidaalka loo soo shaaray waa dadka shicibka